بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحران شركة ضل سريال استيد ولا ليال سود وادا كسو دوادا قعم فران كسو دوادا قلب فران كسو دوادا أديك فن أو إذن رالي قليه هذا ولا ليال سدان وقا براتينبا وحا maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah taala walaalayaal waxa iib ah guriga hadda ee kaamiradu hayso waa guriga dhinacaana wadada ku leh meesha gawaarida ay taalo laamigaana birima ka ah laamiga hadda aragtaan ayuu toos u saaran yahay walaalayaal gurigani waxa uu saaran yahay oo birima ka yahay laami halbowle ah oo kamid ah laamiyada waaweyn ee magaalada Muqdisho intiina badan ama dhamaantiinba inaad wada garanaysaan ayaa rajeynayaa xaafad ahaan gurigan xaafadda uu ku yaalo waa xaafad aad u dhisan oo qurux badan dabaqyada ugu waaweyn iyo guryaha ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho ayaa ku yaalo ayaa ma dhihi karnaa guriga noocan oo kala ah ee laami birima ka ah laami waliba noocan oo kala ah waa fursad ganacsi waa fursad maalgashi dhinacan wada ayaa ka marta waxa hadda ku dhinac soconaa guriga iibka ah wadadan sidoo kale waa wado aad loo degan yahay si fiican guriga waaweyn looga dhisay cabir ahaanna guriga iibka ah waa uu weyn yahay laamiga la intaas oo dhan ayuu iska haystaa waxa hadda arkaysa oo dhan waa guriga iibka ah qaybihiisa laamiga waxa ka furan goobo ganacsi dhinacan gadaalana waa deegaan walaalayaal soo dhawaada inaad si fiican u aragtaan ayaa rajeynayaa waxaan guda galayaa xogta gurigan ama guryahan iibka ah oo dhameystiran insha Allah taala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Waaberi oo kamid ah degmooyinka qadiimka ah ee faca weyn ee magaalada Muqdisho isla markaasina kamid ah degmooyinka ugu horumarsan magaalada Muqdisho xag ganacsi iyo xag deegaan iyo xag dhismo intaba walaalayaal si gaar ah waxa uu gurigani ugu dhow yahay saldhigga degmada Waaberi saldhigga asaga waxa u dhaxaysa hal wado oo kali ah waxa uu saaran yahay oo birima ka yahay laamiga weyn ee Makka al-Mukarrama wadada laamiga hadda aragtaan waa Makka al-Mukarrama wili waxa uu dhow yahay isgooska dabka gurigan iibka ah isgooska dabka waxa u dhaxay boosas tirsan oo afilaya 3 boos meelahaas inay yihiin isgooska dabka marka joogto waxa uu soo leexanaysaa dhanka qorax u dhaca oo wadada aado dhankaas iyo taleex macna laamiga Makka al-Mukarrama markii aad dhankaas ilaa iyo taleex iyo lambar 4 ama marka ka timaado dhanka taleex waa intaadan gaarin isgooska dabka Culuw Tower iyo isgooska dabka ayuu u dhow yahay wadada aad dhankaas iyo Liberia walaalayaal soo dhawaada tilmaanta inaad si fiican u fahanteen ayaa rajeynayaa waana meel la wada garanayo tilmaan iyo sharaxaad saas dheeri ah uma sii baahna walaalayaal soo dhawaada haddii aan u gudbo xagga cabirka oo ku fadhiyo gurigani waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 24 mitir lagu dhuftay 12 mitir laamiga Makka al-Mukarrama waxa uu ka haystaa 12 mitir gadaal ama dhirarkana waxa uu yahay oo wadadan kale ka saaran yahay 24 mitir waa 12 mitir balac ah oo uu ka haysto laamiga Makka al-Mukarrama iyo dhirir oo ka haysto wada jidcada ah walaalayaal haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo gurigani walaalayaal waxa lagu rabaa $1,500,000 oo dollarka Mareykanka ah kaliya oo isku dhamaad ah مع الدلال يهشيس
qiimaha waxaa ka furan gorgoro waxaa la yiraahdaa beec meesha uu ka bilowday kuma dhamaado lacagtaas milyan iyo 500 kun wixii macquul waa la idinka dhimayaa insha Allah ta'ala ila xad waa la idin soo dhaweenayaa waliba si weyn walaalayaal qiimaha hadii la fiiriyana waa u qalmaa waliba si weyn ay ugu qalmaa qiimaha mar walba waxaa la fiiriyaa positionka iyo meesha uu ku yaalo iyo fursadaha maalgashi ama ganacsi ee ka furan si guud marka loo hadlo dhul markuu laami saaran yahay waa dhul qiimo leh oo la jecel yahay haddana laami ganacsi ama laami halbowlaha markuu yahay kuma sii jirto sida ogtiin laamiga Makka al-Mukarrama wuxuu isku xiraa meelo muhiim oo magaalada sidoo kale ganacsiyada ugu waaweyn ama ganacsiyo muhiim oo magaalada Muqdisho oo dhan looga soo adeeg doonto ayaa ku yaala marka sidaas hadaad fiirisid waa uu qalmaa waliba si weyn iyo xaafadan oo horumar xagga dhismaha sameynayso dabaqada dhaadheer ay ku sii wada badanayaan marka soo dhawaada ka faa'iideysta waa milyan iyo 500 oo kun oo doolarka Mareykanka kaliya walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan gurigaan idin geyno haddii aad ku qanacdaanna wixii macquul la idinka dhimo insha Allah ta'ala walaalayaal haddii aad maqan tihiin xagga WhatsApp-ka waa naga soo wici kartaan faahfaahin dheeri ayaa idinka siinayna kadibna qof wakiil idin ayaa soo dirsanaysaan si markaas aad u soo aragtaan si fiican isaga qiimeysaan kadibna beeca ayaa laga heshiinaa insha Allah walaalayaal haddii aan u gudbo xagga wadooyinka iyo jihada sida muuqaalka ka aragtaan gurigaani waa laba jidle wadana wuxuu ka haystaa dhanka laamiga wada kalena wuxuu ka haystaa jidkan kale haddii aan ka hadla xagga iyo jihooyinka waxa uu jeedaa dhanka waqooyi iyo dhanka galbeed wada waxa ay ka martaa galbeed wada kalena waxa ay ka martaa waqooyi waa laba jidle galbeed ujeed iyo waqooyi ujeed walaalayaal haddii aan u gudbo xagga dukumeentiga iyo sharciga gurigaani waxa uu leeyahay dukumeenti saxan oo dhameystiran kaas oo rasiid iyo sabarlog Maxamed Siyaad Barre damiyaala waa dukumeentiyadii hore ee la bixiyay 1990 ka hor xaafadan muddo fog ayaa la degan yahay dukumeentigan waxaa laga yaabaa inuu yahay lixdameeyadii iyo waqti sidaas u sii fog marka soo dhawaada xagga dukumeentiga xulwal ma laha dukumeentigiisa waa uu saxan yahay u dhameystiran yahay haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan dukumeentiga idin geyno nootayadii aad dalbataan si la idinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumeentiga insha Allah ta'ala walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaa idinku beec geenaynaa insha Allah ta'ala haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waa idin helaynaa insha Allah ta'ala walaalayaal ugu dambeyntii waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo dhahdaan gambaleelkana furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah ta'ala sidoo kale Facebook follow inaga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.